kadib kulan maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya isla markaana uu shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa waxay kaga hadleen dhowr arrimood oo quseeya ammaanka dalka iyo sidii loo dhiirigelin lahaa ciidamada dawladda Soomaaliya. Kulanka oo saxaafadu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa ugu warbixiyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee maanta golaha wasiiradu ay ka doodeen. wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cilmooge Xirsi wuxuuna sheegay in kulanka looga hadlo waxyaabo badan sida ciidanka dawladda ay ugu howlan yihiin sugidda ammaanka dalka. wuxuuna dhanka kale sheegay in ku dhawaad 10 gaari ay xukuumaddu ugu talagashay ciidamada booliska oo toota ay ku sugan magaalada Muqdisho. wuxuuna ka codsaday shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in ay kala shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed nabadgelyada uu sheegay in ay tahay mid muhiim ah. shirkii maantay golaha wasiirada waxaa ka soo baxay muhiimadiisa ugu muhiimsan aan sheegaya wuxuu ahaa waraysi guud oo nabadgelyada xaaladda lagu sugan yahay waddanka iyo gaar ahaan gobolka Banaadir ee caasimadda Muqdisho. waxaa kale oo niyad la siiyey in la xoojiyo way jirtaa in la xoojiyo oto booliiska oto oo baawar baa loogu deeqay si loo xoojiyo nabadgelyada xaafadaha gudahooda. waxaa kaloo lagu heshiiyey hotline number dadka u yaqaana number la soo waco shacabka soo waco in case haddii wax dhibaato ah ay dareemaan ama laaluush lagu hasbo ama ay waxay isleeyihiin nabadgelyada ku hayeen ay iyaguna soo tabiyaan number ay isticmaalaan. waxaa intaa dheer oo laga doodo isna qodob muhiim ahaa iigan ayaa bareere soo jeedisay in la kala doorto 2 waddo oo Soomaaliya loogu deeqo oo xad wadamada deriska aan nahay gasha iyadana 2 waddo ayaa lagu gaaray go'aan in loo gudbiyo. waa 2 waddo oo dawladaha deriska ah sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya ay la lahaan doonto oo gobolada dhex mari doona.